بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta casharkeena waxaynu kusoo qaadan doonaa wada sheekaysigan oo dhex mari doona dhowr qof. haddaba casharkeena maanta ayaynu hore ugu sii socon doonaa. casharkan ka dambeeyana waxa aynu ku qaadan doonaa wada sheekaysi si qof walba uu awoodi karo inuu luqadda ku hadli karo isla markaana uu ugu jawaabi karo qofka la hadlaya. waayo marka hore waxaynu ugu talagalnay casharo kooban oo aan ahayn wada sheekaysi. casharada markuu qofku uu soo qaybo ayaa waxa uu awood u helayaa inuu waxna akhriyi karo waxna qori karo isla markaana waxa uu awood u helayaa inuu wada sheekaysi uu samayn karo oo uu qof su'aal weydiin karo, qofkaasi marka uu jawaabana uu haddana su'aal kale weydiin karo. haddaba wada sheekaysigeena ama casharkeena conversationkeena ayaynu hore ugu sii socon doonaa. daawasho wacan oo wanaagsan. waxaanad kala soo xiriiri kartaa casharada page-ka aan ku leenahay Facebook-ga iyo YouTube-ka, labadaba kolba halkii ku fudud. daawasho wacan oo wanaagsan. marka maanta casharkeena halkan ayaynu ka bilaabi doonaa. hadalkeenana waxaynu ku bilaabinaa amaba waxaynoo bilaabaysaa gabadha Mary oo waxayna leedahay oh yeah, sie ist jung und elegant. Ich bin nicht jung und elegant. macnaha waxa weeye oh yeah waxa u dhigantaa allaha. ingiriisigana waxa u dhigantaa oh dear, allaha. oo my dear waa qaalideeyay. oh dear waxay noqonaysaa allaha. ingiriisigana oh yeah, jarmalkana waxay noqonaysaa oh yeah. marka oh yeah allaha bay noqonaysaa. oh yeah, sie ist jung und elegant. Ich bin nicht jung und elegant. macnaha waxa weeye sie ist jung iyadu way yar tahay, macnaha way da-yar tahay. und elegant waana qof fiican oo wax kastaba kusoo baxaysa. Ich bin nicht jung anigu mana yari, und elegant mana ihi qof wax walba kusoo baxaysa. marka hadii jeer elegant waxaa la yidhahdaa qofka dresskiisa iyo labiskiisa iyo qaabkiisa wax walba kusoo baxa, wax walba ku qurux badan. elegant way. marka way ka maseersantahay qof kale ayay aragtay. qof kale ay markaa ka sheekaynaysaa. aan ku celiyo oh yeah, sie ist jung und elegant. iyadu way da-yar tahay, waa da-yar. und elegant waana qof wax walba kusoo baxda. Ich bin nicht jung und elegant. anigu mana yari, mana ihi qof wax walba kusoo baxda. markaa qof kale ay aragto ka qurux badan ay ku maseersan tahay. Soomaaligeedina inta hoose ayuu noqonayaa. markaa Stephanie oo gabadh kale aabaa niyada u dhisaysa waxay leedahay machen Sie sich keine Sorgen, Mary. Mary ha warwarin. machen Sie sich keine Sorgen, Mary. Mary ha warwarin. Sie sehen jung aus. adiguba waa da-yar tahay. Soomaaliga waxay noqonaysaa ha warwarin Mary. adiguba qof da-yar waad u eg tahay. machen Sie sich keine Sorgen, ha warwarin Mary. machen Sie sich keine Sorgen, Mary. Mary ha warwarin. Sie sehen jung aus. adiguba qof da-yar waad u eg tahay. Sie sehen jung aus. adiguba qof da-yar waad u eg tahay. haddii la yidhaahdo Sie sehen gut aus, Sie sehen gut aus, macnaha waxay noqonaysaa waxaad u eg tahay qof qurux badan. good aus macnaha waxaad u muuqanaysaa qof si fiican baad u muuqanaysaa qurux badan. laakiin haddii la yidhaahdo Sie sehen jung aus, qof da-yar ayaad u muuqataa weeye. machen Sie sich keine Sorgen, Mary. Mary ha warwarin. Sie sehen jung aus. adiguba qof da-yar waad u eg tahay. ka hadalka waxaa soo galay Dan, ninka la yidhaahdo magaciisa Dan. hadalka waxa uu ku bilaabay oh Mary. Mary, ich bin ihr Mann. Ich bin ihr Mann. anigu waxaan ahay ninkaagii. Ich bin ihr Mann. anigu waxaan ahay ninkaagii.
ich bin gut aussehend aniguba waan qurux badanahay ich bin gut aussehend aniguba waan qurux badanahay du 40 ilaa afartanaadkii macnaha ilaa afartanaadkii baan ku jiraa du 40 waxaan ku jiraa macnaha ilaa afartanaadkii trage waxaanan ku labisanahay eine Brille muraayadii indhaha Allah ich mag keine Brillen ma jecli muraayadaha indhahana mana jecli markaa Soomaaligeedu wuxuu noqonayaa alla Maariye anigu waxaan ahay ninkaagii aniguna waan qurux badanahay ilaa waxa afartanaadkii macnaha ilaa afartanaadkii unbaan macnaha ku jira meelahaas qiyaastii waxaanan xidhanahay muraayad alla laakiin ma jecli muraayadaha Brillen markaa waa jamac muraayadaha bay noqonaysaa Mari ich bin ihr Mann waxaan ahay ninkaagii ich bin gut aussehend anigu waan qurux badanahay du 40 ilaa iyo afartanaadkii meelahaas baan ku jiraa trage eine Brille waxaanan xidhanahay muraayadii indhaha Allah ich mag keine Brillen mana jecli markaasi muraayadaha indhaha af Soomaaligeedina inta hoos ku qoran ayuu noqonayaa markaasi Stephanie ama gabadha la yiraahdo Stephanie ayaa iyana waxa ay leedahay ich mag keine Gartenarbeit aniguna ma jecli shaqada beeraha ich mag keine Gartenarbeit aniguna ma jecli shaqada beeraha aber Miss Bieka gabadha la yiraahdo die Gärtnerin beeraleydii sie ist auch iyadu sidoo kale die 40 waxay ku jirtaa afartanaadkii groß wayna dheer tahay sie Dan adiguna Dan ninka Dan la yiraahdo ora Henry ama Henryo mögen sie Gartenarbeit ma jeceshihiin shaqada beeraha aan ku celiyo ich mag keine Gartenarbeit aber Miss Bieka die Gärtnerin sie ist auch die 40 groß sie Dan oder Henry mögen sie Gartenarbeit ich mag keine Gartenarbeit aniguna ma jecli shaqada beeraha ich mag keine Gartenarbeit ana ma jecli shaqada beeraha aber Miss Bieka gabadha la yiraahdo die Gärtnerin oo ah beeraleydii sie ist auch iyadu sidoo kale die 40 waa ilaa afartanaadkii meelahaas groß wayna dheer tahay sie Dan adiguna ninka Dan la yiraahdo ora Henry amaba Henryo mögen sie Gartenarbeit ma jeceshihiin shaqada beeraha markaa gabadh kale oo beeraley bay ka sheekeynaysaa su'aashana waxay weydiisay oo leedahay idinkuna maxaad jeceshiin ninka Dan la yiraahdo amaba Henryo idina maxaad jeceshiin miyaad jeceshiin shaqada beeraha bay macnaha ay weydiinaysaa ninka la yiraahdo Dan baa hadalkii isku dayay inuu ka jawaabo oo uu sheego waxa uu jecel yahay waxaanu hadalka ku bilaabay nein ich bin Diplomat ein britischer Diplomat mit einem amerikanischen Akzent wie komisch Sie Jessica was machen Sie marka waxa uu leeyahay nein alla maya macnaha markii hore waxa la weydiiyay ma jeceshahay aadna shaqada beeraha isna wuxuu kaga jawaabay nein alla maya ich bin Diplomat waxaan ahay diblomaasi macnaha waxa weeye qof u qaabilsan siyaasadda dhaqaalaha wadan u qaabilsan oo wadan kala jooga marka wadan buu mas'uul uga yahay siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada waa diblomaasi Soomaaliga waxaan malay inay noqonayso safiir iyo wax noocaas nein wuxuu nein alla maya ich bin Diplomat waxaan ahay diblomaasi ein britischer Diplomat waxaan ahay diblomaasi British ah mit einem amerikanischen Akzent oo leh markaasi lahjad Mareykan wie komisch bal ka waran siday faniga u tahay
V comish hadii jeer waxaa la yidhahdaa V how funny bal ka waran sidii cajiibka u tahay ama V comish iyo waxaa isku macnaa iyo lustig das ist lustig das ist comish funny way V comish bal ka waran sida ay funnyga u tahay und sie Jessica adigana ninka Jessica la yidhaahdo was machen sie maxaad qabataa ood ka shaqaysaa marka aan ku celiyo oh nein alla maya ich bin Diplomat waxaan ahay diblomaasi ein britischer Diplomat waxaan ahay diblomaasi Britisha mit einem amerikanischen Akzent oo leh lahjad Maraykana wie komisch bal ka waran sidii cajiibka u tahay ama funnyga u tahay und sie Jessica ninka Jessica la yidhaahdona was machen sie maxaad qabataa oh nein ich bin Diplomat ein britischer Diplomat mit einem amerikanischen Akzent wie komisch und sie Jessica was machen sie intaas bay noqonaysaa Soomaaligeediina waa ka halka hoose ku qoran ninka la yidhaahdo Jessica ayaa hadalka waxa uu ku jawaabay ich bin Drogenhändler anigu waxaan ahay darooga iibiye ich bin Drogenhändler anigu waxaan ahay darooga iibiye ich bin Drogenhändler anigu waxaan ahay darooga iibiye marka dhamaantoodba waxay hal mar alle dhamaantood waxay yiraahdeen was macnaha waxay la yaabeen hadalka hore uu yiri marka dhamaantoodba alle dhamaantood waxay yiraahdeen was oo Soomaaliga noqonaysa maxay macnaha waxay la yaabeen hadalka hore uu yiri marka Jessica ninka la yiraahdo mar labaad waxa uu yiri ja und ich bin mit ihrer ersten Frau verheiratet Henry anigaana guursaday gabadhaadii hore Henryo xataa gabadhaadii hore aniga ayaa qabi jiray buu yiri Jessica ayaa mar labaad waxa uu yiri ja und ich bin mit ihrer ersten Frau verheiratet Henry anigaana qabi jiray gabadhaadii hore Henryo okay marka hadalka waxaa la wareegay ninka la yiraahdo Dan waxaanu yiri wie interessant xiiso badana sind sie der Mörder ma waxaa tahay dambiilihii sind sie der Mörder ma waxaa tahay dambiilihii ama gacan ku dhiiglihii marka murder Ingiriisigana waxaa lagu yiraahdaa murder waana dilaa ama gacan ku dhiigle aan ku celiyo wie interessant xiiso badana sind sie der Mörder ma waxaa tahay dambiilihii ama gacan ku dhiiglihii Stephanie waa waxay tiri ich glaube es ist Chris ich glaube waxaan u malaynayaa es ist Chris inay tahay xilligii Chris uu hadli lahaa imika ist so ruhig uu aamusay isagu ich glaube waxaan u malaynayaa es ist Chris waa xilligii Chris ist so ruhig uu aamusayba marka hadii jeer markuu qofku aamuso hadalkii ka qayb qaadan waayo waxa la oranayaa ruhig Ingiriisigana waxa la yiraahdaa quiet markuu qofku uu aamusan yahay ich glaube waxaan u malaynayaa es ist Chris inay tahay markii Chris macnaha markii uu Chris hadli lahaa hadalka qaadan lahaa inay tahay ist so ruhig uu aamusay isagu marka sidaas bay noqonaysaa macnaheedu kelmadda la yiraahdo machen Sie sich keine Sorgen Soomaaliga waxay noqonaysaa ha warwari machen Sie sich ha samaynin keine Sorgen wax warwara macnaha warwarin bay noqonaysaa mach dir keine Sorgen oo oran kartaa mach dir keine Sorgen mach dir adigu ha samaynin keine Sorgen wax warwara mach dir keine Sorgen ha samaynin wax warwara macnaha warwarin bay noqonaysaa labaduba ich bin Sekretärin ich arbeite in einer Firma ich telefoniere viel und arbeite am Computer marka waxay noqonaysaa ich bin Sekretärin anigu waxaan ahay gabadh xog hayna
haddii la yidhaahdo ich bin Sekretär waxa weeye waxaan xog haye waa ninkii weey. haddii en lagu daro ich bin Sekretärin waxaan gabadh xog hayna. Ich arbeite waxaan ka shaqeeyaa in einer Firma company ayaan ka shaqeeyaa. Ich telefoniere viel in badan ayaan dadka telefoon garayaan wacaa. Und arbeite waxaanan ku shaqeeyaa am computer waan ku shaqeeyaa macnaha waa qof computer hadii dul fadhiista oo computerka ku shaqeeya. Ich bin Sekretärin. Ich arbeite in einer Firma. Ich telefoniere viel und arbeite am Computer. marka had iyo jeer Sekretärin haday tahay qofka xog hayntii waa inuu telefoon oo macaamiishii uu waco mit Kunden telefonieren oder mit Freunden telefonieren waa in asxaabtii wacdo ama Kunden ama macaamiisha wacdo. Termine vereinbaren ama ay ballamihii ay arrange garayso isku habayso isku diyaariso. Termine vereinbaren und mit viele E-Mails lesen und schreiben inay email waraaqo badan oo email ay qorto oo ay akhrido. Mit Kunden telefonieren waxyaalahaas oo kale marka la isku wada dardaro waa shaqada xog haynta ay qabato. marka viele E-Mails lesen und schreiben, mit Kunden telefonieren und mit Chef Termine vereinbaren. Waadi jeer chefkana ay jeer balamaha loo isku habeeyo oo balamaha loo diyaariyo. marka hadi jeer xog hayntu waa inahaas computerkeena ku shaqeynaysaa. marka shaqada xog hayntu waa intaas. Ich bin Sekretärin. Ich arbeite in einer Firma. Ich telefoniere viel und arbeite am Computer. marka intaas bay noqonaysaa. waxaaynu soo gaarnay guntii iyo gabagabadii casharkeena maanta. waxaan idinkaga tegaynaa idil ahaantiinba nabadgelyo meel kasta oo aad joogtaanba. haddaba haddii aad danaynayso amaba aad ka heshay casharadan waxaad si fudud aad uga heli kartaa TV-ga Somali German Union oo aad ka heli doonto casharo taxanaha. casharadan oo hadda kadib aad ka heli doonto page-ka gudihiisa. haddaba waa inaad page-ka aad like saartid si aad maalin walba ula socotid casharada ku cusub page-ka dhexdiisa. casharada waxaanu marka hore soo gelin doonaa qaybta Facebook ama page-kana ku leenahay Facebook-ga. waayo dadka badankoodu waxay isticmaalaan waa Facebook. haddaba kala soco casharada hadda kadib qaybta Facebook ama page-kana ku leenahay Facebook-ga. kadibna waxaanu soo gelin doonaa qaybta YouTube-ka. waxaan idin leenahay dhammaantiinba intaaynu ku kulmi doono cashar noocan oo kale ah. waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.